وخليها بلا إن عيب لو أرق ميزانية دولتها قار إن يكبر أنت هاي لبعضن دل أو أفريقيا مصدن دل أو أفريقيا ميزانية دولة أمريكا محاكة وحيكون حد سجال بقول بليون أو دولار ميزانية الدفاع أمريكا عند أمريكا هذا كل دولة يسوق بسنة سنة ما شفتوه وقنا سجال بقول أو بليون والله بعطان أما صدق ودن ميزانية دولة يسكت علي أيها كوب حدا سلوا الدفاع عيدة بدأ إركا يعلق أمريكا إذا كانوا حلقين يا ما أنت مركز عيدا كان الله كل هذا صومالي محي عيدا مصري سنس مهمة عيدا كينولي هاي ومهمة أولى هاي حل نوكليير إن لو بحيو أو دمر قار سيد إسرائيل يكون بحيان أنت أسأل بليون أو دولارين لسمايستان وحيس كجد دفاعان هدي الله صور waxaan rabaa inaan sheegno muhiimadda dalkan dhismawaagiisii waqtiga dheer qaatay ee soo rafanayay waxa ugu weyn uu rafanayay amnigu amnina waxa suga ciidan waxa kaloo laga yaabaa dadku inay xoogga u saaraan dhulka oo ay ilaawaan muhiimadda cirku leeyahay iyo muhiimadda baddu leedahay ciidanka baddu wuxuu noogu muhiim yahay sida ciidanka dhulka uu noogu muhiim yahay inta dhulka ka jirta in leeg baa baddana ka jirta haddii cadowbadda dhulka joogo cadowbaddana wuu joogaa haddii tuug iyo xaaraami ay joogaan dhulka tuug iyo xaaraamina badday way joogaan haddii kootarabaan iyo mukhaadaraad ay dhulka joogaan kootarabaan iyo mukhaadaraadna badda waa soo mari karaan haddii dhac iyo boob uu dhulka joogo laga yaabo in lagama yaabo in geeleyna la dhaco ay iska adag tahay maleegeenna waa la dhacaa oo xoolaha sidaa geeleyna uga mid yahay xoolaheenna ayaa kalluunkeennuna baddeenna uga mid yahay oo waajib tahay in la difaaco waxaa laga yaabaa dhulkeenna beriga ay adag tahay in qofku sun ku aaso laakiin baddeennu waxay halis u tahay in sun lagu aaso dabadeedna sida dhacday mustaqbalka dalka iyo dadka dhalan doonaba ay saamayso 100 cudur iyo 100 mushkiladood naga yimaadaan intaa iyo in 10 jeer oo kun ka badan ayaynu uga baahanahay inaynu yeelano ciidan badeed oo macna leh oo xoog leh Soomaaliya cidna duulaan kuma laakiin waxaan rabnaa inaynu sharka iska difaacno si ay sharka isaga difaacnana waa inaanu helnaa ciidan raggan oo kala ah oo u diyaara naftooda iyo maalkooda inay u huraan waxaan amaanayaa admiralka ugu sarreeya ciidanka badda cabdixamiid maxamed dirir oo intii uu ciidanka yimi isbeddelkiisu muuqdo iyo niyadiisa iyo waxqabadkiisa iyo muuqaalka ciidanku uu isbedelo maanta waxaynu ku faano oo maanta dabaaldegani aanu lahaantii aanu suurto galeen aad iyo aad baad u mahadsantahay admiral cabdixamiid waxaan kaloo ku ammaanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo muhiimad gaara siiyey ciidanka badda markii uu cabdixamiid u xulay ayay ka ahayd muhiimadda in ciidankani dhismo aad baan madaxweynahana ugu hambalyeynayaa inuu muhiimad gaara sii siiyey iyadoo ciidamadoo dhan ay muhiim yihiin haddana ciidanka badda hambalyaan leh intaa kadib ma dheeraynayo hadalkayga waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo dalkani waa ogeeday inuu dumay ma waxa u haysataan inuu maalin kaliya iska dumay muxuu u dumay yaa dumiyey kuwii dalka dumiyey way joogaan cadowgii dalka dumiyey shisheeyaa dalkan dumiyey run baan idiin sheegaya dalkan quwado shisheeye ayaa dumiyey macno ma leh qofku isticmaalo Soomaaliya waxaa la arkay inay dhisantay oo ay socotay oo ay meel fog ku socoto dabadeedna waxaa la adeegsaday tab kasta oo shisheeyuhu dalkan ku burburiyo ninkii waxa la yidhi ninkii hooyada dilay ninkii hooyataana hoos ma geeyo hor ma jeedo ninkii shalayto burburkaaga ka shaqeeyey maanta ma jeclaan doono dhismahaaga sababtay shalay sababtu kuu burburiyey ayuu weli ka baqaya iyadoo Soomaaliya dal nabad tahay iyadoo Soomaaliya aan cidna duulaan ku ahayn iyadoo Soomaaliya derisnimada jecel iyadoo Soomaaliya sharciyada dunida ilaalisa iyadoo Soomaaliya kamida dhamaan nabadoonnada iyo dadka iyadoo waa aragaba jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maanta
oo aan rabshadba u baahnayn haddana weli gacmihii waa inagu jiraan. gacmaha inagu jiraana waxay diidayaan inaynu noqono qaran taabagala. sababtay u diidayaan waa maxay? soomaaliya waa hal qoys, nation state baa la yidhahdaa. 192 dal ee adduunka wax aan 10 gaarin baa nation state. nation state waxa weeye dad isku af ah oo isku midab ah oo isku dhul ah oo isku dhaqan ah oo isku diin ah oo isku isir ah oo isku cunto ah oo isku cabida oo hal dari ku wada seexda. dunida kama jirto. waxaa dawladda laydin sheegayaa waa kala af, waa kala dhaqan, waa kala diin, waa kala dad, waa kala isir. ummaddan 20 milyan ee sidaasay qoyska kaliyihiin hormeelo afrikaba qabsataa ayaa dadka qaar ka baqaya. hankaasaan rabnaa inaan soo celino. qabsan mayno, laakiin aan qarankeena dhisano ayaan rabnaa oo ay kow ka noqotaan ciidan ahaan. waxay ishayaan, waxaan rabaa inaan dhexdhexaad laga noqon, shisheeye iyo sokeeye. dawladnimo inoo soo kacaysa oo quruxdan leh iyo burbur aan garanayno, foolxumadiisa iyo qaabdarradiisa iyo qaxoontigiisa aan garanayno. waxay ishayaa calan aan kor u hayno. kor u qaad calan. iyo dawlad la-aan iyo fawdo. waxay ishayaa meel kasta in danjirayaasheenna iyo safiiradeenna iyo saraakiisheennu ka shaqaynayaan iyo dadka inoo jooga dunidu, iyo mar aynaan qof haysan dunida safaarad iyo qunsuliyad iyo meelaan ku eranno. waxaa ishayaa ciidan badeed oo dhismaya. waxaynu soo marnay qof kasta oo garaad lihi waa oge, xanuunkeediina waa oge. maalintii xamar dagaalku ka dhacay lugba waxaan ku tegay afkoodii 30 misaan haddana 30 kilomitir oo kale soo lugay, misaan haddana yani waxaan xanuunka dhibaatada iyo dawlad la-aantu ay leedahay. maalintii ka horreysana inaan dhakhtar noqday baan rabo, jaamacaddaan hela. duruuftaan rabna inaan bedelna waa taa. waxaan rabnaa inaan carruurteenna mustaqbal u samayno. waxaan rabnaa qof kasta inuu dawladnimo uu ku faano haysto. raggii aasaasay ciidanka badda dhowr qof baa kasii nool oo taliyuhu ka mid yahay. waa ka tegaynaa dunida. waa inaynu uga tagnaa generationka soo socda noloshii aynu soo marnay ka duwan oo ka qurux badan oo ka nabad badan oo ka caafimaad badan oo ka isjacayl badan. ma rabno nacayb inu nagu filan waynu aragno. dawlad la-aan ma rabno, dawlad la-aan in nagu filan waynu aragno. horumar la-aan ma rabno, horumar la-aan meel aan qof ku daaweysano waynu weyn. dalkani wuxuu soo maray dhakhtarka oo bilaash ah, iskuulka oo bilaash ah, nolosha oo bilaash ah, biyaha oo wax yar la bixiyo. intaasaynu soo maray. intaas oo la beego oo lacagana waynu soo aragno. waxaan rabnaa dawladnimo. waxaan rabnaa inaynu diidno qofka dawladnimada inoo diidan. wadamada jaarka nabad baanu ugu baaqnay, mar walbana la daba taaganay. waxaan akrinayay taariikh hore markii Kenya intaanay xornimada qaadan waxaa ka jiri jiray dhaqdhaqaaq mawmow la yidhaahdo. mawmowgii iyo dawladdii ingiriiska si xun isu dhacay, waa la wada xiray. Jomo Kenyatta xabsi la dhigay. meeshii ay u soo qaxeen waxay noqotay Muqdisho iyo Soomaaliya. halkanaa lagu hayn jiray siyaasiyiintooda, madaxdooda, dhaqdhaqaaqa ragga wada, ragga madaxda ah. maalintay xorriyadda qaateenna aadan caddaa 2 doorasho siiyey. wuxuu ku yidhi miyaad joogaysaanoo caqaamadaa laydin siiyaa dalkaad degaysaan, mise dalkiini 63 wuu xoroobeeyey waa noqonaysaa. abaal baynu ku leenahay. ma rabno abaal, laakiin yeeli mayno sida admiralku sheegay. dhulkaaga qaato, baddaada qaato, dalkaaga qaato. yeeli mayno, ma yeelayno wallahi. waxaad u taagan tihiin difaac, ma tihidin weerar. inaad difaacdaan waxaa kaga wakiil tihiin 20 milyan oo Soomaaliyeed ayaa kaga wakiil tihiin oo idin igmaday oo idin doortay oo idinka sugaya inaad baddooda iyo khayraadkooda iyo noloshooda ka ilaalisaan shar oo dhan. hadday cadow tahay iyo hadday argagixiso tahay iyo hadday mukhaadaraad tahay iyo hadday illegal fishing tahay inaa ilaalisaan. aad baan idin hambalyeynayaa, aad baan idin bogaadinayaa. waxaan rajaynayaa munaasabadda ka dambaysana
iyadoo kasii qurux badan inaynu badda gudaheeda insha allah inagoo maraakiib haysana oo imikaba waynu haysanaaye sii kordhinay inaynu badda gudaheena ku qabsano aad iyo aad baan u salaamayaa wasiirka difaaca jooga meel wasiir difaac joogana wasiir warfaafin hadal loogama ogola aad baan idin salaamaya